ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Genyo Cabdicasiis ayaana maanta qalin lagu sameeyay gacanta midig ee farta isagoona sanadkii la soo dhaafay aad waxyeelo ugu sheeganaya fartaasi isbitaalka weyn kalkaal ayaana qalinkan ku guuleystay inay ku sameeyaan ciyaaryahan Cabdicasiis oo ah shabaq ilaaliyaha kooxda kubadda cagta LLBB Genyo. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdicasiis Cabdullaahi Raage, waxaan ahay ciyaaryahan professional ah. waxaan u ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee dalka Soomaaliya ka dhisan horyaalka Soomaaliya LLBB Genyo. waxaan ahay goolahayaheeda koowaad ee kooxda kubadda cagta Genyo. runtii intaan waajibaadka kooxda ku jiray ayaan dhaawac soo gaaray. dhaawacaas oo halkan maanta u imaaday in lagaga dabiibo isbitaalka kalkaal oo isbitaal aad weyn ah oo barnaamijkan qalimaadka ciyaartooyda qabta oo maanta ii qabanayo. dhaawacaas oo ah gacanta maadaama goolahayahan professional ah. dhaawacan waxa iga soo gaaray waajibaadka kooxda anigoo gudanayo. halkan maanta waxa u joogaa in qalinkii isbitaalka kalkaal oo ay balan qaadeen qalinkii sameeyay qalinka leeyahay uu sameeyo. alxamdulillah hadan waxaan diyaar u ahay in qalinkii maro on diyaar aan u ahay. waxaan rajeynayaa insha Allah taala inaan caafimaado ilaahay waxaan ka baryaa inuu caafimaad degdeg siiyo. ciyaaryahankan waxa lagu xasuustaa in kooxda kubadda cagta LLBB Genyo ka badbaadiyay horyaalka heerka labaad inay dib ugu laabato xilli kulankii kala baxay ee la ciyaareen naadiga Jaalayaasha Elman oo ahaa goolahayay ka badbaadiyay fursado dhowr ah kooxda kubadda cagta ee Genyo silamina Elman oo u diray tigidhka horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya Division 1. tiktoorkii qalinka ku sameeyay ciyaaryahanka Cabdicasiis ayaana wax ka weydiin xaaladda ciyaaryahankan iyo rajada uu ka leeyahay kubadda cagta iyo goorta ku soo laaban doona garoomada. وكلها جول FM وحنا إمادة جول هيان عبد العزيز أو حنا نقول إمادة قبتنا بكون صعدك وحوك عمنا فر جوك سو قارت مدبل القهرة جوك توحد مرك راجل أنصارنا كبعد وحاجة إنه كلا بحجر كبعد وحاجة أنصارنا قليل أسمينا ما دام فرتي سيقل عنتها قليل كأسمينا إنه حياها إن فرت بوسش كذا لوسو علي مرك بسي ومستقبل قدام كوبد عكته ورجوعيش الحمد لله قليل كمان تواسمينا أنا استعمالين كوابس بس وحكلو ولو استعمالين معناها إن جنرال أنستيزي وحسنا أنسينا كوابس بس أنسينا مركزينا كبعدي إن الحمد لله هذا قلنا كوكسو قولي سنة جالسة صارنا إن شاء الله من دبل كذا إذا نحرجينا إنه قرم الدبل وصلت. كذا خليك الوسط من عياريان كان إسبتال كالكال وحكسونا بتغييرات كبدة على LLBB Genyo kuwaasoo garab istaag weyn u muujiyay ciyaaryahan Cabdicasiis. ugu horeen waxa ka hadlay goobta taageerayaasha ama madaxa taageerayaasha kooxda Genyo Fahimo iyadoo ka warbixisaba xaaladda ciyaaryahanka garab istaag ee uu muujiyay. magacayga waa Fahim Maxamed Cali ahna gudoomiyaha taageerayaasha kooxda kubadda cagta LLBB Genyo. waxaa maanta inta ugu imaanay walaalkeena Cabdicasiis qalinka oo maanta marayay. alxamdulillah ilaahay uu fududeeyay sidoo kale waxa uu rajeynayaa insha Allah inuu caafimaado oo sida uu kooxda ugu ciyaaro General Daawud ka caafimaad degdeg ah u rajeynaa insha Allah. Bismillah, magacaygu waa Shukri Cabdullaahi Maxamuud. waxaa maanta halkan u imaanay oo soo booqanay walaalkeen Cabdicasiis Cabdullaahi Raage, goolkiibarka kooxda LLBB Genyo oo walaalkeen oo halkan qalin ku galay maanta ku soo booqanay. alxamdulillah qalinku waa lagu guuleystay ilaahay uu fududeeyay sidoo kale anaga dhamaanteen taageerayaal ahna waxa u rajeynaynaa caafimaad taam inuu helo. sababta ciyaaryahankan ayaana garoomada lagu dhaxarki doonaa tartanka General Daawud Diftah Abdirashiid Abu Karnani Gol FM isbitaalka weyn ee kalkaal Muqdisho.